على شافع الورى أحمد اللهم صل على شافع الورى. 12 Rabiicul Awwal waa maalinta uu dhashay nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa Allah yeelay waxaana guud ahaanba dunida islaamka laga xusaa isla markaana laga weyneeyaa dhalashada nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee xaafadda horseed ee magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle ayaa si weyn waxa looga xusay dhalashada nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee odayaasha dhaqanka waxgaradka culumaa u diinka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaana isu soo baxay goobtii lagu weyneynayay dhalashada nabi Maxamed waxa ayna culumadii ka soo qayb gashay halka ay ka soo jeediyeen maxaadarooyin diini ah oo ay ku tilmaamayaan xusidda maanta iyo waxyaabaha ka dambeeyay in maanta oo kale la weyneeyo. قد جاءكم من الله نور وكتاب نور كاس النبي محمد قرأت وكحب ذي قرأت واسو ساري واسي ذاتي ذي سهوس كذا واسو ساري واسي أرحب لماذا؟ إياها كنت تصرف هاي هوسك قبل يبسط يا كجرا ثم قبلناه إلينا قبلا يسيرا أو قرآن كذا ثم قبلناه إلينا قبلا يسيرا هوسي حتى ما تقول واسو قابل هنا سريعي مرك إلهي محدي هوسك نبغي نسوق قابل لا حول ولا قوة بل أنت تسمعني تبالي هوسكي نبغى إلهي حضر وين وياي حرمة وين وياي نكاس حرمة راسنا أن مجلس كيس ما أنت فضلنا أن حسينا ما وحن كجرنا بوين وحى إلهي كبريا وحن إلهي كبريا ما ملك يعني جوهر إلهي إنه كأبور قلب يسا إنه حفظ دمويني إلى أن تكرجها إن شاء الله إن تنويناته أفرت حافظ إقامته أرجيها إن شاء الله تعالى حسكي نبي محمد صلى الله عليه وسلم يومكي نبي لأدري عيد أو عظيم به أول إلهي وحسري إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والمرأة دي إلهي يزكزلي نبي محمد هذه ملائكة دي كسلسي محنو دي ما أنت عنك وحنو دي ملا أنت معناها آمنوا سوقليس معناها واجب تاسع ناغدك آيات تاسع واجب ناغدك يا أيها الذين آمنوا صلوا بالير إلهي بان عمره صلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. ugu dambeyn xildhibaan Ibraahim Muuse Cali oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle oo ka soo qayb galay munaasabadani ayaa waxa uu halkaasi ka soo jeediyay kelmado ku aadan isu soo baxan balaaran ay sameeyeen odayaasha dhaqanka iyo culumaa u diinka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. waa maalin weyn waa maalin ciid waa maalin nabigeena Maxamed ahaa oo dhashtay oo hadana uu dhintay asahaate waxa waaye maanta maalin ka weyn ma jirto waa 12kii mawlid marka haduu ilaahay ku roon yahay waa inaan ku xiideysana waa inaan abshireysana waa maalin weyn oo nabigeena Maxamed ahaa alayhi salaatu wassalaam ee uu la koryeelay warfacana laka dhikrak ayaliir dunida islaamka oo idil waxa laga weyneeyaa isla markaana lagu xusaa dhalashada nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee oo ku beegan 12 Rabiicul Awwal ee bisha haatan aynu ku guda jirno. Cabdifataax Axmed Maclow Cabdifataax Zaki telefishinka caalamiga ah ee Bulsho Jowhar.